waxaa maanta dunida islaamka si weyn loogu dabaaldegaya ciidul adxa oo ka mid ah ciidaha ay sida weyn u maamusaan ummadda islaamka. meelaha sida weyn looga dabaaldegay waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalkani Kenya. ciidan ayaa ka duwan ciidihii hore sababo la xiriira cabsida xanuunka coronavirus, ayadoona aysan jirin dadweyne aad u tiro badan oo isku soo baxay, waxaana salaada ciida lagu tukaday masaajidada. qaar ka mid ah dadweynaha xeryaha Dadaab ayaa ka waramaya sida maanta looga ciiday gudaha xeryaha Dadaab. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waxa waaye Kaysa Cabdullaahi Cabdi, waxaana deganahay magaalada la Dhagaxley. magaalada Dhagaxley ku noolahay ma sha Allah. maanta waa ciid wanaagsan, ciid mubaarak. sidii aan ku ogeyn magaalada ma aha corona ay jiro, ciidihii masaajidada lagu tukadaa la dhahay yaa la isku dhawaana la dhahay. ciid uma eko wallahi billahi wa ta'ala baa corona ga wana wax saameyn weyn ugu yeeshay, hatta dhaqaale shaqo nooc walba. ciidan ciidii hore maxay ku kala duwan yihiin? ciidii hore waa kala fog yihiin ma sha Allah. ciidii hore jawgani cudurkan la sheegay ma jirin, caabuqan hadda dilaacay, nabad baa jirtay, waa la isku socday, waa la isku gudbi jiray, xeeraha isku gudbi jirnay. hadda laakiin Dhagaxley dhinacna u dhaafin gurihiina joogay noqday. tukada masaajidada ku tukada, gurihiina jooga ku nasta. magacayga waa Saalax Xasan oo ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Dhagaxley. maanta waa ciid aad aan faraxsanahay. bulshooyinka Soomaaliyeed markasta ay ku nool yihiin waan salaamayaa, gaar ahaan hooyadeyda oo la joogta oo la dhaw Xabiib Isaaq Aadan, aabahayga oo Soomaali jira oo la dhaw Xasan Maadey. dhammaan ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogaan waan salaamayaa. alxamdulillah wallahi billah, ciidii hore iyo maanta ciidii hore alxamdulillah maanta ayaa fiican. maanta salaada ayaa aad loo tukaday, masaajidda ayaa aad ugu tukanay. sidoo kale maanta waxaan amaana suuqa oo hoteela hadda aan wax ka soo cunnay. alxamdulillah ilaahay ama hadle. marka waxaan leenahay ilaahay cudurkan oo coronavirus oo la sheegay meelaha ilaahayna bulshada Soomaaliyeed ilaahay ka qaadan leenahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. anigoo Maxamed Qaali Cali Abikar Dadaab iyo Dhagaxley maadaama aad joogo waxaa lagu yidhi aad iyo aad inta hadda maqlaayo ma garatay. dareenkayga farxadeed aad iyo aad u weyn yahay. ciidii hore ii lamid ah biligay maanta kale ima soo marin. haddii jawiga la fiirsho ciidan ciidihii hore farqi weyn ayaa u dhexeeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. si fiican ayaa loo ciiday. ciidihii hore waa la kala ciidi jiray, ciidan dadka dhammaan hal mar ay isla ciideen. maasha Allah, waxaan ku dhahay jawigu wuu degan yahay, dadku si fiican ayay u ciideen. wallahi jawigeeda maasha Allah, inkastoo aan zaid u sii marmarin meelo qaar, laakiin intii aan maray maasha Allah si fiican ayaa loo ciiday. ugu dambeyn ciidan ayaa ku soo aadaysa xilli uu jiro xanuunka coronavirus oo faraba'an ku haya dunida, waxaana ciidan inta badan la gowracaa xoolaha nool lana sameeyaa udxiyada. waxaana jira kumanaan dadweynaha oo aan awoodin inay ka qayb qaataan farxadda ciida, kuwaasoo ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab. Nuur Daar Xuseen, raadiyaha iyo TV-ga Koonfur Galbeed Soomaaliya, xeryaha Dadaab.